قاعد اسمع الجديد قاعد اسمع الجديد هاي بسم الله ما تحكي لك الصبر ما كنت انا اخوك ما qiimeyn iyo dabagal aan ku sameeyey cilmi baarisyaha laga qoray iyo waxa inoo muuqanaya dhibaatada caafimaad ee bulshada uu ku hayo maandooriyahan dadka Soomaaliyeed dilooday caleentan qoyan ee geedka magaciisa loo yaqaano Cata edulis ee dadkayga u yaqaanaan qaad ama jaad ama miraa ee caanka ka ah bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay bariga Afrika iyo dibaddaba maxay wax ka dhibi lahaydba haddii caleentan la cunaya ay ahaan lahayd qudaartii oo kale ama miraha hadday inoo ahaan lahayd fruits oo kale oo jirka faa'iido u leh waa sun jirka aadanaha aan looguba talagelin sababtaan uga digayo waxa ay tahay dhibaatada ay leedahay caleentan qoyan ee dadkayga ay cunayaan raadka ay ku leedahay qofka caafimaadkiisa markaan wax yar ka taabto caleentan marka ugu horeysa qatarta ay leedahay waxa weeyaan horta waxaa ku jira wax psychostimulant chemicals oo loo yaqaano cathinol ama marka ay yara qalasho caffeine taasoo waxay ku samaysaa maskaxda bini'aadamka ah raadka ay ku reebto sunta kale ee loo yaqaano ee u dhiganta amphetamine taasoo runtii aan uga hadli doono sunan kale iyo maandooriyaal kale oo laga helo iyo siyaabo kale oo loogu talagalay maskaxdu inay saameyn ugu yeelato marka cathinonkan ee laga helo fareeshka caleemahan qoyan ee dadkayga ay aadka u jecel yihiin qofka waxay firfircooni iyo ay ku keentaa maskaxda bedelaad ku samaysaa waxyaalo badan oo khayaali ah oo dhammaanteed kama dambaystiina dhaxal siiya dhibaatooyin xagga caafimaadka ah haddii aan 1 iyo 2 waxun aan ka sheego dhibaatada caafimaad ay ku leedahay qofka bini'aadamka ee cuna eena dadkeena ka muuqata aan u jeednaa marka ugu horeysa waxay tahay addictionka qofka inuu la qabatimayo qofka marka uu maalinta ugu horeysa uu cuno wuxuu ku noqdaba dabadeedna waa badsanayaa haddii uu ku bilaabay hal caleen kadibna wuxuu u bedelanayaa hal mijin kadibna mijintaasi kadib way ku yaraanaysaayo wuxuu u bedelanayaa marduuf ilaa marka dambe ay noqoto haddii uu fariisan jiray saacad inuu fariisto habeen dhan ama 12 saacadood dhan uu meel fadhiyaa oo ay adkaanayso qofka inuu kaba go'o oo difficult inuuba qofka ka haraba taasoo u horseeda dhibaato ba'an oo aan waxyaalo badan ka sheegi doono runtii waxaan aad u nabcaystay qofka dhibaatada ay ku yeelanayso ilkaha xaggiisa caafimaadka ilkaha ciridka ayaaba ugu daran oo qofka waxaad arkaysaa muuqaal ahaan iyo mustaqbal ahaanba caafimaadkiisa ilkaha dhibaato badan bay ku keenaysaa waxaan arkay oon runtii aqriyay meelo badan oo xagga maskaxdana hadday noqon lahayd lahankaca depressionka anxietyga marka ugu horeysana hurdo la-aanta iyo qofka xanaaqa badan inay ku keenayso waxaasoo dhanna waa aafada chemicalkan ee caleenta qoyan ay wadato marka maskaxda laga soo tago waxaase kasii daranba qofku wuu liqayaa calooshiisay maraysaa way sii baxaysaa taa maxaa ka dhashayana waxaa ka dhasha calool xanuuno waxaa ka dhasha constipation calooshii oo fariisata iyo appetite-ka qofka uuba lumiyo oo qofkii oo loss of appetite uu ku dhaca waxaad arkaysaan sida aad ku arkaysaan maxaa la dhihi jiray videogan ay Horn Africa qaaday oo COVID-ka loogu talagalay waxa meeshaas waa meesha laga kala qaado groupka isu yimid ee cudurro isku weydaarsadaan hadday noqon lahayd cudur kasta oo lagu kala qaado xagga neefsashada oo ay TB-du ugu horeyso iyo cudur kasta oo respiratory disease ah dadku marka ay group ahaan isugu yimaadaan waxay kaloo leedahay qofka inuu ka qaado wadna xanuuno dhiig karkiiba la sheegay inuu kor u kacayo wadnaha oo si qaldan oo irregular heartbeat increased
maxaan ku rahdaa risk of heart disease ay leedahay. weli waxaanu ka hadlaynaa xagga physical healthiga. marka aad fiirisada xagga bulshadana social crisis iyo family destruction badan baa laga qoray. reero ku burburaya, dhaqaalo ku burburaya ayaa runtii aada looga qoray oo Soomaalida ku saabsan. waxaa kaloo jira iyana spiritual problems xagga diinta, qofka inuu salaadihiisii seego, in ay qofku waxyaabo kale ku yimaadaan, inay xataa tahay goob xagga macsida iyo sexual healthiga runtii iyana dhibaatadeeda wadata. marka waxaan u sheegayaa waxay tahay in aan soo qulaaseeyo haddii uu jiro dhib communitygeena haysta Soomaaliya, hadday noqon lahayd gees ka gees. number 1 waxaa noqonaya qaadka, caleentan qoyan ee dadka iyagu ay har iyo habeen cunayaan. waa haddii uu jiro public health crisis, waa this is number 1. waa maandooriye, dhib maskaxiyan iyo dhib maxaan ku rahdaa badanba, iyo dhib spiritual ah, iyo environmental health issues oo sun badan oo pesticides iyo waxyaalo badan oo geedkan wata oo dadka iyaga aysan warba u hayn oo dhibaato badan ku keeno oo kansarkuna qayb uu ka yahay. marka aanu ka hadalno dhibaatadaasi waxaan rabaa runtii inaan kusoo qatimo maxay ahayd yaa xal ah, maxaa xal ah, yaase ka mas-uula xalkani. dowlad hadday jirto ama degmad ay ka jirto ama ay gobol ka jirto oo maamul goboleed sheeganaya ama dowlad sheeganaya ama dowlad federaal sheeganaysa, wasaaradda caafimaad iyo wixii la mid ah, waxay tahay marka hore in ay ka hortagaan arrintan. hadday noqon lahayd waxbarasho iyo hadday noqon lahayd siyaabo kale looga hortegi karo. dadku wacyigooda waa in kor loo qaadaa, oo dadku hadday noqon lahayd kambayno, mashaariic loogu talagalay dadku in wacyigooda lagu dhiso in waxani uu yahay wax dhibaato caafimaad, dhibaato bulsho, dhibaato dhaqaale uu leeyahay, waa in la sheego. taasi waa number 1. waxaan runtii kaloo muhiim ah in mustaqbalka la badbaadiyo dhallinyaradeenna ee iskuulka dhigata ee aan weli qaangaarin, in aan loo horseedin inay waddadaasi soo maraan iyana, oo la helo community based prevention programs oo hor istaagi kara in mustaqbalkeenna aanu badbaadino. mar haddii dadkeennan maanta da-da ah ee 20 iyo 30 ka weyn ay sidatan xaalkoodu noqday, in iyaga loo sugo xaalkoodu inta uu ka dhammaanayo ay ka le-anayaan, oo loo sugo mustaqbalka yarka ahee ilmahan curdunka ah in la badbaadiyo ayaa waa number 1. number 2 waxaa kaloo iyana muhiim ah masaajida, faith community, cultural partnership, duqeyda dhaqanka, dhammaantood inta ay isqabsadaan gamcaha ee masaajida meel kasta oo ay ka hadlayaan, in ay dhiirigeliyaan in caafimaadka iyo nafta mas-uuliyadda ay naga saaran in aynu ka warhayno qof kastaaba, oo qof kastaba maxaan ku rahdaa uu ka hadlo sida ay dhibaato inoogu leedahay. aysan iyana qeyb aysan ka noqon culamaa udiinka iyo dadka muxtarimiinta ah iyo dadka magaalada laga yaqaano iyo siyaasiyiinta, dadka muxtaramka ah, in aan laguba arkin in ay qaad cunayaan. waxaa kaloo muhiima daaweyn, treatment and support services inay u sameeyaan, maadaama meeshu dowladda ay ka jirtaa. maxaa yeele addiction services waa in dadkan la qabatimay, waa in rehab loo sameeyo, lala taliyo, social groups loo sameeyo, oo markaasi muhiimaddu ay tahay in la yareeyo addictionkan inaanu intaas sii dhaafin. mental health integration waa in loo sameeyaa. waxyaabo badan baa isbahaystay, dadka iyagu sidoodii kale ayay dagaalo iyo dhibaatooyin badan in haysteen, haddana marka qaadka lagu daro wixii dhan baa is-hoosgelaya. markaasi comorbidity dhibkan isdul saaran si loo kala badbaadiyaa. qaad related anxiety, depressionka, trauma, waa in la helaa mental health services dadka iyaga u gaarka, siiba qolooyinka hadda aynu ka hadlayno ee qaadka cuna. family supporta loo baahanaya in dadkaasi la sameeyo oo wax la siiyo ama support loo sameeyo. cilmi baarista iyo data gathering hadday noqon lahayd wasaaradda iyo hadday noqon lahayd jaamicaadka, community research baa loo baahanayaa, surveillance system baa loo baahanayaa oo monitor gareeya dhibaatooyinka dadka iyaga. inteebaa cunta, dhibka ku imaanaya muxuu yahay, yaa maxaan ku rahdaa maxaa la dhihi jira calool xanuunkii, yaa depressionkii, yaa all those kind of stuff. maxay sameeyeen dadkan qaadka cunaa, waxyaalihii anecdotal information badan baanu haynaa. dad badan marka ay qayileen inaa xataa ay suuragal tahay sida qof qamriga ka dhergay oo kale inuu wax kastaa sameynayo.
waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in cilmi baaris rasmi ah laga sameeyo si ay qeyb uga noqotaa xalka laga gaarayo arrintan. Knowledge sharing baa loo baahan yahay. Intaa dabadeedna waxay noqonaysaa markaa in policy and regulationno la sameeyo oo wax ka qabta control accesska hadday noqon lahayd iibkiisa, soo gelintiisa, sii dhoofintiisa, distributionkiisa, in wax laga qabto oo tallaabo looga qabto. Mar canshuurta lagu zaa'idinayo, mar maxaan ku rahdaa la maanacayo. Inkastoo banning joojin la joojiya hal mar aysan shaqaynayn, hadday shaqaysana ay dhibkeeda ay hoosta ka wadato, laakiin waxaa loo baahan yahay in wax waliba ay ku yimaadaan si waaqica markaa dadku ay ku nool yihiin. Waxaan kaloo runtii aada ugu talinaya dhalinyarada iyo dadka aqoonta leh inay advocacy sameeyaan oo barnaamijkan national iyo local policies ee dadka iyaga lagu badbaadinayo loo yimaado, ee goboladu dhammaantood ay gamcaha isqabtaan si dadkan loo badbaadiyo. waxaan runtii kusoo qatimayaa waxay tahay youth empowerment, job training and employment, community healing. waxyaabo badan baa loo baahanayaa bulshada si loo badbaadiyo dadka iyaga. maxaa yeelay mar 80meeyadii Soomaalida waqooyi bari ama Soomaalida waqooyi galbeed dowladdii markaa jirtay ay ka mamnuucday. runtii caqabaadka yimid waxay ahayd dadkii beeraleyda ahaa xitaa waxyaalo badan in loo sameeyo maxay ka shaqaynayaan iyo howlo badan oo la doonayo dowladdu in ay ka shaqaysaa. qaadku ma ahan wax caafimaad laga helayo. qaadku waxa weeyaan waa wax caafimaadka dadka iyaga burburinhaya. marka ilaalinta nafteenna, protecting your health, family and future means making the choice to live khaat free. qof kasta waxaan kula talinhayaa in uu qaadka ka haro, joojiyo. haddii kalese waxaad mas-uul ka tahay burburka ku imaanaya naftaada, qoyskaaga, ehelkaaga iyo qaraabadaada. maanta meesha aad degan tahay dad baa degan oo adigu aad qeyb ka tahay. waxaad ogaataa in short time in adigu ay kula soo dersi doonaan tallaabooyin badan oo caafimaad, dhibaatooyin badan oo caafimaad. marka waxaan qof kasta ka codsanayaa in uu fariinta tan uu ku dhaqmo, dabadeedna uu maxaan ku rahdaa ka fogaado isticmaalka cunidda qaadka. qaadku waa droogo, qaadku waa maandooriye halista ugu weyn ee bulshada Soomaaliyeed haysata meel kastoo caalamka joogto. Allahumma hal ballaqtu.